bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada channelkeena Somali News Channel oo aad kaga bogan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo daafaha caalamka. Somali News Channel waa channel aan diiradda ku saari doono wararka hadba xasaasiga ah, arrimaha bulshada, dhaqaalaha, siyaasadda iyo sidoo kale dhacdooyinka caalamka ka dhaca. waa sabti taariikhdu waxay ku beegan tahay 4 bisha koobaad sanadka 2019. qodobada warka Somali News Channel ugu door karoona waxaa kamid ah maamulka Jubbaland oo warbixin ka soo saaray xaaladda deegaanadii al-shabaab laga saaray, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyay heshiiska damaanad qaadka darafyada badan, duqa magaalada Muqdisho oo maanta dhagax dhigay dib u dhiska suuqa Dayax ee magaalada Muqdisho, xanuun aan heybtiisa la aqoon oo ka dilaacay deegaano ay ka mid yihiin gobolka Sool, Sheekh Shariif oo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay ku fashilmeen xilkii loo igmaday, kooxda Boko Haram oo in ka badan 50 qof ku dilay harada Chad ee dalkaasi Nigeria, al-shabaab oo 3 nin ku toogtay deegaanka Buqa Qable ee gobolka Hiiraan, shacabka dalka Bolivia oo u dareeraya goobaha doorashada, iyo madaxweynaha Mareykanka oo ka hadlay weerarkii lagu dilay Qaasim Suleymani. Hagaag intaas waxa ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warkeena ee Somali News Channel. U diyaar garooba goordhow warkaas oo faahfaahsan. markale kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada haatan warkii oo faahfaahsan. aan ku bilaabay sida qodobada ku maqleyseen wararka naga soo gaaraya deegaanka Buqa Qable ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xogaga al-shabaab meel fagaara ay ku toogteen galinkii dambe ee shalay 3 ruux oo ku eedeysnaa in ay la shaqeynayeen dowladda Soomaaliya. 3dan ruux ee toogashada lagu fuliyay ayay dadka deegaanka waxay sheegeen in al-shabaab ay ka soo qafaasheen deegaanka El Cali oo dhawaan dagaal uu ku dhaxmaray xogaga macawisleyda iyo waliba dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab. 3 ruux ee al-shabaab toogteen ayaa lagu kala magacaabaa Cabdulqaadir Xasan Aadan oo 25 sano jir ah, Cabdicasiis Axmed Maxamuud oo 28 sano jir ah, iyo Faarax Cali Jibriil oo 29 jir ah sida lagu sheegay war ka soo baxay al-shabaab. inkastoo al-shabaab ay ku eedeeyeen 3dan ruux oo ay toogteen in ay la shaqeynayeen dowladda Soomaaliya, haddana dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dadkaasi ay ahaayeen dad shacaba. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka gobolka Hiiraan oo la xiriira warka ku saabsan 3dan ruux ee toogashada lagu fuliyay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa dhagax dhigay maanta suuqa Dayax ee degmada Hiliwa. dhagax dhiga kadib gudoomiyaha oo ay la socdeen qaar ka mid ah madaxda maamulka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale waxay soo kormeereen qaybaha uu ka kooban yahay suuqaasi oo horey loogu iibin jiray noocyada xoolaha, inkastoo uu qayb ka noqonayo goobihii danta guud ee ku burburay qalalaasihii dalka ka dhacay ama dagaaladii sokeeye. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa kula dardaarmay bulshada in ay ilaashadaan goobaha danta guud ee muhiimka u ah adeegyada aasaasiga. dhanka kale duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xoolaha lagu iibiyo qaybaha kala duwan ee magaalada ay caqabad ku yihiin bilicda caasimadda, sidaa daraadeed marka la dhameystiro dib u dhiska suuqa maamulku uu mamnuuci doono in xoolaha lagu iibiyo goob aan suuqa ahayn. howlgallo xagga cirka ah oo ay soo abaabuleen ay isku soo duday dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika isla markaana lala beegsaday kooxda al-shabaab ayaa ka dhacay galbeedka magaalada Muqdisho. howlgalkan oo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Bariire oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana 45 kiiloomitir galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho ayaa warku waxa intaas uu ku darayaa in lagu dilay 3 ka mid ah kooxda argagixisada ee al-shabaab. qiimeen ku aadan duqeynta xagga cirka ah oo la sameeyay ayaa waxa la sheegay inaysan jirin wax dhibaato ah oo la gaarsiiyay dadka rayidka ah ee ku sugnaa agagar halkii weerarkaasi lagu qaaday. xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho gaar ahaan Villa Hargeysa. mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulankaasi ku ansixiyay heshiiska damaanad qaadka maalgashiga darafyada badan
xildhibaanada oo dood ka yeeshay heshiiskaasi ayaa ansixiyey waxaana ogolaaday 139 xildhibaan waxaana diiday hal xubin halka 2 xubnoodna ay ka aamuseen. sidaasi ayaana heshiiska ansax ku noqday waxaana kulanka soo xiray gudoomiyaha baarlamaanka. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu dilay hogaamiyihii sare ee militariga Iran Qasem Soleimani. waxa uu sheegay Trump in uu dhammaaday waqtigii argagixisada ee Soleimani kadib markii jimcihii lagu dilay weerar dhanka cirka ah oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Baghdad ee dalkaasi Ciraaq. madaxweynaha Mareykanka ayaa qiildayay dilka isaga oo sheegay in jarnaalka uu qorsheenayo weeraro ka dhan ah dhanka Mareykanka. Soleimani ayaa madax ka ahaa howlgallada Iran ee bariga dhexe oo waxa uu hogaamin jiray ciidamada Quds. Iran ayaa waxa ay wacad ku martay in ay si degdeg ah uga aargudan doonto weerarkaasi. shacabka dalka Bolivia ayaa u dareeray doorashada guud ee bisha May ee soo socota. doorashadaasi oo laga dareemayo guud ahaanba dalkaasi Bolivia. ku-xigeenka guddiga doorashada ee dalkaasi Bolivia Oscar Hanasantef ayaa sheegay in la dooran doono madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa si ay u bedelaan madaxweynihii xilka laga tuuray ee Evo Morales iyo haweeneyda lagu magacaabo Jeanine Áñez oo hadda madaxweyne ku meel gaar ah ka ah dalkaasi Bolivia. maalinta Isniinta ee soo socota ayaa lagu wadaa in guddiga doorashada dalkaasi ay soo saaraan habraaca doorashada dalka. Morales ayaa xukunka laga tuuray bishii November ee sanadkii 2019 kadib markii ay dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo xukunkiisa. madaxweynaha dalka haatan xilka sii haysta ayaa sheegtay in ay xabsiga dhigi doonto haddii uu wadanka uu ku soo laabto Morales, halka Moralesna uu ku adkeysanayo in uu wadanka ku soo laaban doono. inta la xaqiijiyay 2 ruux ayaa u geeriyootay in ka badan 70 qof oo kalena waa uu soo ritay xanuun ka dilaacay deegaanka Saaxdheer oo ku yaala koonfurta gobolka Sool sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta caafimaadka ee deegaankaasi. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in xanuunkan halkaasi ka dilaacay uu watay calaamado ay ka mid yihiin shuban, xumad, qufac, balse aysan ilaa iyo hadda aysan garanayn dadka waxa uu yahay xanuunkaasi. mas'uuliyiinta xarumaha caafimaadka ee Saaxdheer ayaa sidoo kale waxay soo sheegayaan in xanuunkan oo si xawli ah ku sii fidayo uu soo ritay dad kala duwan oo ku nool deegaanka Saaxdheer iyo dhulka miyiga ah ee ku teesan nawaaxiga Saaxdheer. madaxda xarumaha caafimaadka ee Saaxdheer ayaa codsanaya in gurmad degdeg ah lala soo gaaro xilli ay gaabaabsi yihiin dawooyinka iyo adeegyadii caafimaadka ee xarumaha, isla markaana bukaanada kala duwan ay soo riteen xanuunka la soo dhigayo isbitaalka. taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland Jarnaal Aadan Maxamuud Ibraahin ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda deegaanada dhowaan ciidamada Jubbaland ay kala wareegeen Al-Shabaab ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. taliyaha ayaa waxa uu sheegay in nolosha dadka ay ku soo noqotay sidii caadiga ahayd oo ay heleen dhammaan adeegyadii aasaasiga ah ee nolosha sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, amnigoodana uu sugan yahay. ciidamada Jubbalandna ay joogaan halkaasi. deegaanada Cabdilla Biroole, Buulo Guduud, Yoontoy, Baarsanguuni, Wirkoy, Singaleer iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah goobaha laga saaray ururka Al-Shabaab. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku sugan magaalada London ee dalka UK ayaa sheegay in maanta dalka uu u baahan yahay isbedel maamul, isla markaana laga doonayo dadka Soomaaliyeed in ay hormuud ka noqdaan. Sheekh Shariif ayaa sheegay in maanta Soomaaliya ay joogto meel aad halis u ah una baahan hoggaan ka duwan midka hadda jira oo leh karti iyo weliba horumarin dhanka kaabayaasha dhaqaalaha iyo amniga. waxa uu sheegay in haddii uu dhici waayo isbedel in mustaqbalka Soomaaliya uu ku jiro xaalad mugdi ah. wahagaag halkaad nagala socotaan daawadayaal waa Somali News Channel. qaybihii dambe ee wararkeena ayaa isla soo gaarnay. maleeshiyada looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Boko Haram ee dalka Nigeria ka dagaalama ayaa ugu yaraan 50 qof ku dilay jasiirad ku taala harada Chad ee xadka Cameroon iyo Chad ay wadaagaan, waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska ee dalkaasi. maleeshiyaadkan ayaa isku soo ekeysiyay ganacsato oo soo weeraray kalluumaysatada
sidaasi waxaa sheegay maayarka deegaankaasi oo soo xigtay qof weerarkaasi ka badbaaday. weerarkan ayaa waxa uu dhacay 22 bishii December, hase yeeshee warka laga helayo maleeshiyaadka baadiyaha fog ayaa hadda uun soo baxay. Boko Haram ayaa waxaa lagu dhisay gudaha wadanka Nigeria sanadkii 2009 wixii markaasi ka dambeeyana waa ay fideen oo howlgalladoodii waxa ay gaarsiiyeen dalalka dariska la ah sida Chad, Cameroon iyo Nigeria. daawadayaal guud ahaan war wixii gudaha iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray kala socoteen channelkeena Somali News Channel. waa naga intaas dib intaan u kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.